Soomaaliya marka aan wax isku dayna waa inta karnaa inaan caawino baan magaciidino ilaaway laakiin waxa la leedahay anu lacagtan aan bixinayo dad baa soo bixiyo Soomaaliya Soomaaliya soo dirta anigu wax isku dayna inaan dadka u soo direen ku caawino baan marka hooyo adiga intaas adigana inta hooyo babaanti marka intaas labadiina leedahay dad lacagtan aan yimaysnin Soomaalida ay dadku kuwan imika aad meelaha ugu tagtagisiin oo guryo ku jiro kuwaan baa lacag soo bixin faanteen marka kuwaan u duceeya anaga meelaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khiyaartan jeclaa ku soo dhawaada channelka Ba Official haddaad ku subscribe channelka please subscribe like comment and share haddaad hore noo leejiso waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaada mar walba iyo mar kasta sidaad muuqaalkaba aad ka arki doontaan walaalkeena wuxuu caawin doonaa laba hooyo labadaasi hooyo waxay ahaayeen kuwa oo wax weydiista gawaarida magaalada markaa soo istaagaan ay wax weydiisanayeen marka ilaahay amarkiisa waxaa la kulmay walaalkeena dirisle labada hooyo khayr allah siiye marka sheeko dheer kadib iyo xaaladahooda markuu wareystay ayuu wixii ilaahay markaa uu siinayaa marka muuqaalkeena aan wada daawano seetiino yoota seetiin fiicantiin marka hore wuu u yeeray way u soo dhawaadeen xaaladooda iyo caafimaadkooda ayuu wareysanayaa magacaaga adiga Ali Mas'ud adiga aaga fadhiisatay wadaad hadriyo ali maxaa ku dhacay anaga wiilkayda baa wajaara lagu dilay sax مكان ساس بمو الماضي المية أقوم واعي الحمو والله بالله ويذن waxaa meeshan keenay waa wiilkeeda oo la dilay oo uu gacan qaban lahaa wax walba u qabanayay ayaa laga dilay baan ku jiraa ishi maxaa ka dhacay ishi waa iska meelkiis waxba okay baan ba ku dhacay adigana way maxaa ku dhacay ilaa imisa bilood hargeysa joogtay imika saddex sano joogta okay hooy marka xagee seexatay habeenkii guri kiro maxaa loo leeyahay kirada yaa ka bixi marka see ku bixisa kirada mana meelahan baad waxaad ka heshaa ku bixisaa okay adigana xagee seexatay habeenkii بقول لك قدر ايه ايا ابو ساعه تابيك وادك استكني سأل هو يكبكم نعمك مكب نحواك خلدا مثلا ولي واحد بعض معنا أبو أنت تختار كان ما يقرني لكن اللي تبيه مالك هو بعض وما مرجع نروح سودينا ما يتذكرني يعني عاود لو كان مقعد إنه يلاوي به أكيد محل هذا عنو لعكتنا بحنايو ضد صوب بحيو Soomaaliya Soomaaliya soo dirta anigu wax isku dayna dadka u soo direen ku caawiyo baan marka hooyo adiga intaas adigana inta hooyo babaanti marka intaas labadiina leedahay dad lacagtan aan yimaysnin Soomaalida ay dadku kuwan imika aad meelaha ugu tagtagisiin oo guryo ku jiro kuwaan baa lacag soo bixin faanteen marka kuwaan u duceeya anaga meelaha soo duceeya آمين 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 ويا خلينا دوا يروح على العسل كيسير بحي مسكو يبان هذا هو حرس ايضا حرس صاي وين سلام وين لكم فلان تسمع انت انسى الناس وحالي ما
مراد كودنا على آمين آمين سومان مراد كودي عافمات كودنا آمين وحنون والله وحنون اوكي عادي سووا هاي كواس لكن هذا انا waxaan ku haynaa midaabta waa ma garanaysaa ya way ku anfacaya ya kun soo kuma anfacayaan kuwa ma ku haynaa burshna mala afta bursh ku soo qaado okay nooc walba waa taaqwana inuu akreem وكانت عمليه ما كنتش يا جماعه انا والله ما قاعد انت بنا كوكو طلع لوري ما كانش واحد بتاع كوكو انا ابو ها والله لا يا والله المحل هذا يمسب له بس شقيسه انت المحل هذا عاد انت ليه متاع انا كوكو يعني يمسب له بس شقيسه ساعد معناها يجيب 60 سن واحد صدح بلاد صدح بلاد صدح بلاد بس شقيسه ساعد يجيب 60 انت ليه كوكو يعني ما يكرم كوكو كده ما ادري سن على شكو هورو dhamaado saad baa u jiibtino kugu darnaa imika markuu dhamaado iibso tanna oo ma daantay ayaa u shaqeysaa hooyadii walaalo ma leedahay waalaya imisa waxa leeyahay laba gabdhood iyo afar wiil laba gabdhood afar wiil maadi kaliya waa shaqeey mise kuwa kala shaqeeyay u jiraan way shaqeeyaan iyaguna okay oo ku faraxsan annagu ilaa shaqeysma baan taabo inta leeg waxbarashada isku tiin waxbarashada isku tiin waan dhigtaa wadiga waxbarashadana okay mana waa saddex wada labadaba ma sha Allah magaca Muxyidiin telefoon ma leedahay lambar ma leedahay malid lambar maga laga helaa xageed mar wal fadhiistaa hagaayar okay Muxyidiin okay Muxyidiin waxaan isku daynaa hadii aan ku aragno mar labaad xaga sheegtay baan iman doonaa adu dhowr cisho kadib ilaa markaadna ka farxino wala ku faraxsanahay inaa shaqeynaysa adoo inta leeg fahmaysaa kala hore u sacab kuleenahay sababtoo ah wax fiican bad qabanaysaa dhibaatooyin ma la yar kulantaa marka qaarkood ya dhibaatooyin ma la kulantaa macnaha dad si qaldan kula hadla dad lacagta kala tagay waxa soo soo ku faraxsanahay anaguna soo kale marka waxa ku leenahay hore u soco shaqeyso okay ayde ayo waa wax kale u baahan ma jirtaa astri waa u baahan tahay ma jirto aan jeebada gasho tan jeebada kaga qaad ay ku rujinna okay aywa صدقة فضائل آدي ترى بدن أي لا ده وحن كشيء طبعا أي شيء إن شاء الله كنكوبات كل حديث يقص وضع المفتوى ساعة ترغيب كجران رسولك وحيري إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تنكوبات الله عردي سأيك عند جنس صدقة طلبات صدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء طلبات صدقة وحيكات ترتريس أميكات قيسة دنبيجي أجشي تنسدحات صدقة آخر مركي لجار وحيكون قنيساي حر يكون قنيسا كل امرئ رسول حديث ولا صحيحة هاي وحو هرسنا صدقة ديسا انت إلى أكتهاي تن أفراد وحالو داوية دتك حانوصر أيالو داوي رسولك داو مرضاكم بالصدقة تنشانات وقاية من النار نار تأيكا إليس رسولك فاتقوا النار ولو بشق تمرة تنلحات لين القلب قلبك أي كوجين عينيسا حديث ورسولك وحوير قفك روين وقلبك يسجل أيها تدك مسكين تعون متحسية أقونتنا هائل عليهم تنتظبات مالي والبول دعوينه ملك يقول دعوينه قفك صدقة بحيو حديث كان قرينا اللهم أعطي منفقا خلفا تنسديدات قفك صدقة بدن آخر الباب قوني أيا لا جناد مركو قال الباب قوني أيا لا غيرا تنسقالات وحي دليل وتهقفكاس إنه مسلم يا رسولك وحير الصدقة برهان تنتظنات أودا بيسنا وحواي مطهرة صدقة وحي كو طاهرين إيسا لعكتنا كو بدين إيسا حولها كو بدين إيسا صدقة
rasuulku xadiidka uu dhahay dadka yaa macshara tujaar markuu tujaarta la hadlayo wuxuu yidhi sadaqada beyca waxaa ku qasmo dhaar iyo waxyaalo kale ayaa gelisaan ina hada albeyc yaxdaruhu waxyaalaha fuxshiga iyo ayaa kasoo qabala waxaa samaysan waxaa ku daahirisaan sadaqada ku daahiriya haddaba sadaqada aan ku dadaalno waqtiga ugu fiican meesha ugu fiican lagu bixiyo kow waxaa fiican sadaqada sometimes inaad sadaqada qarsatidna way fiican tahay axyaanan marmarka qaarkood inaad bannaan ku bixiso ayaa fiican labadaba saxaabada way ka sugnaatay allahna wuxuu yidhi in tubdu sadaqaati fa nicmaahi wa in tukfuuha وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم لبضب واسمين كرتاي ماشي جوجتي ku xiranta mar hadii loo baahan yahay inaad dadka ku tashjiicisin encouragement ku samaysid oo gacanta aad taagtid 2 kun taagtid dad kale si kugu daydaan way fiican tahay inaad hoos u bixisidna waa samayn kartaa waxaa kaloo fiican markaa caafimaadka qabatid markaa dhimatid inaad dardaarantay sadaqadaada way sadaqay ku tahay laakiin waxaa ka fiican adoo nool inaad waxaaga baxsatid dadka faamilkana inaad siisid ayaa fiican si kugu kala dhadhow yihiin ugu dambeyntiina sadaqa jaariya inaad samaysatid ama masaajid ka qayb gashid ama ceel ka qayb gashid ama sadaqa jaariya oo kuu soconayso inaad samayso waa sayfin account oo furato kale barakallahu fiikum sadaqada ha lagu dadaalo waa acmaasha ugu fiican oo qofka ku dadaali karo waa sadaqada allah naga dhigo dadka sadaqada bixiyo jecelna inay sadaqaystaan barakallahu fiikum salaamu calaykum aan ka faa'iidaysan insha allahu tacaala waan idin salaamay